wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan waxaad nagala socotaan warbaahinta Aljazeera News Somali aniguna waxaan heshiina madaxay waxaan maanta waraysi gaaban la yeelan doonaa Maxamed Aadan oo loo yaqaan Maxamed Didiin oo horey u sheegay inuu jecel yahay fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed ee qaaliladan bal jacaylka ay arrimihiisa ayaan wax ka weydiin doonaa marka hore soo dhawow Maxamed Aadan Didiin ودوهاي walaalka Shiine ama wariye Shiine saaxiibkay Shiine oo ku dhawahay ma santahay Aljazeera News wa salaama adigana ku salaama bal ku sii socod insha Allah magaceygana waa Maxamed Aadan Garaad sax weeye waa mahadsantahay Maxamed oo waraysiga naga aqbashay inaan kula yeerano dhawaan waxa sheegtay inaad jeceshahay fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed qaaliladan marka hore bal jacaylkaasi ma wuxuu ahaa mid dhab ka ah mise wuxuu ka ahaa mid khiyaali ah Shiine kuma fahmin horta jacayl waa sheegaysaa haddana khiyaaliga maxaa ula jeedaa maxaa ka wadaa khiyaali waxaan ka wadaa jacaylkaas aad u qaaday fanaanadaas ma mid adiga dhab ah buu ka ahaa mise mid riwaayada buu ka ahaa ma horta jacaylkaas ha dhihin jacaylka aad u qaaday ilaa Shiine su'aalaha iga saxabo bal ku laabo khiyaaliga iyo dhabta iyo wax isku dareys ma fahmine si caadi wax ii weydiiday billaah calayka dad waaweynaan صح وي علشان جعلكاس فنانada aad u qaaday ama jacaylkaas soo bandhigtay ma mid dhab ah oo xaqiiqo ah buu ahaa mise mid khiyaali ah buu ahaa Shiine inaad su'aalahan foosh xun ay weydiinaysid waxaan ka fahmay sida foosh xun ah u fadhiisatay bal fadhigaaga inta qurxisid su'aalahan iga qurxi waxaan adeero gacali ugu bariyaa waa hagaag su'aashan ma kale kugu celinaya fadhigana waa ka saxayaayo adiguna isku day inaad su'aalahayga ka jawaabto si qurux badan wax ii weydiin fanaanadaas aad jeclaatay Maxamed Didiin waxaan inaan ogaano dad badan ay rabaan inay ogaadaan inuu ahaa mid dhab ka ah iyo inuu ka ahaa mid riwaayad ah ka wadi horta Shiino adiga ma dadka ku soo dirsaday mise adiga عاديا wax ii weydiinayo yani dadka inay ogaadaan dadka maxaa ka galay dadka ma ay dhalay yeesihiin dadka ay weydiinayso ma familkayga maali familkayga ma familkeeda gabadha maxaa ka galay si caadi wax ii weydii adi ahaantaada shakhsiyan oo hadal maxamed saas wax u jiraan ilaahay sidii foosh xun aan ku sheegay u fadhisay ilaa hadda si ka sii fool xun u fariistay inaad ergacali caadiyan u fariistay su'aalooyin caadi ay weydii billaah calayk بس قل فرد العشاء وايهي سؤاشاس waa ka gudbeynaa waxa moodaa inaadan jawaabteedii la siin ma ka sii soconayna jacaylka fanaanada intaadan u qaadin ka hor qaalilada ma iska hubisay inay family leedahay ama xaaji leedahay ama xiriir leedahay see markiiba u bilowday inaad tiraado waan jecleedoon qofta caanka ah fanaanada aadan arrimaheeda hoose soo xaqiijin horta Shiino fiidiyowgayga waa daawatay Aljazeera Newsna waa dhigtay oo dhex yaala fiidiyowgaas waxa ku jiray arin aan kaga hadlayay ayada xaaladeeda iyo haday xiriir leedahay iyo hadii la qabo waan ka hadlay fiidiyowga qof wax jeclaado iyo qof wax naca aniga ugu ma horeeyay Shiino inaad yaro gacali soo qof bin aadanami soo qof noolaami haddii aan jeclaadana maanta dumar uma xumadee waa dumar haddaan nacana dee weligeeda la isnici jiro laakiin ilaahi hadda aniga waxaan ku wareysanahay qaaliladanta ay weydiinayso waa qaaliladantee ma laba qaaliladanaa jirto soo hal qaaliladan ma ahayn wax bal kullaaba bal si qurux badan wax noogu weydiisiinaniyo waa hagaag gabagabadii warayskay soo gaarnay haddan aynu joogno jacaylkaagii hore ma ku taagan tahay mise waxba iska bedelay aniga jacayl badan aan leeyahay jacaylkee waay weligeed jacayl badan aan lahaay haddana jacayl badan qoftaan hadda ku weydiinayo jacaylka yaa waa qofka ay weydiinayso ma Fortuna ma Xamdiya ma Shukriya ma Leila ma Muna ma Qadra yaa maya kuwaas oo dhan kuma weydiin qoftii hadda aan ku weydiinayo qaaliladan jacaylkii weli ma jeceshahay mise waxba iska bedelay qaaliladan yalla daawadayaal tan iyo intaan dib dambe u kulmi doono wuxuu ahaa kaasi Maxamed Aadan oo loo yaqaan Maxamed Didiin oo aan waraysi kula yeelanay gaar magaalada Kaasal dalka Jarmalka horay ayuu u sheegay inuu jecel yahay qaaliladan tan iyo intaan dib dambe u kulmi doono daawadayaal Shiina qaaliladan hay aniga iyo qaaliladan walaashay waa hay gudir aniga iyo Maxamed Didiin ba
waxaan igaga tegaynaa gabagabadii waa yahay qaaliladan halka maxaa kale qaaladan waa salaameynaa waa gabar walaasheena waa fanaanadeena kolley aqoon isuma leh jaceylka qofku jeclaadana anima rooxaamay ahayn iyo jinniyaal mar walba ani laakiin walaashay waa jeclahay walaalnimo u jeclahay binaadinimo u jeclahay waa fanaanadeyda waa fanaanad qaran waa fanaanad Soomaaliyeed waa gabar Soomaaliyeed ma sha Allah cadowgeedana ha u noolaato farxadna ha ku noolaato wixii horena waxay iska ahayd maantana baashaal iyo qaraax iska ahayd barankii oo ahay Soomaali badan soo weydiinay jir ilaa ugu yaraan 300 qof Facebook ay ugu soo darsaday ay weydiin gabadh ma jeceshahay iyo gabadh saan way iyo gabadh maxaa ka galma gabadha iga xigaan gabadh ma jeclaan kari يا ولا شيء وجعلها ولا لما وجعلها لكن جعل كلا أقوم كلا شيء اسمه ما أنت ما تقع أنا ما أقانو إن تي في يسكع ما هنا لكن أقوم ده هذا سكولنا عملها جعل الشيء جاي نمجرب جعل قال لنا إيه قال أنا ما أنا نعرف تكرر وما زنتي مع السلامة داود